cabdisalaad maxamuud oo ahaa fidiye ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland isla markaasina kamid ahaa 5 kamid ah shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo heliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga oo labadii bishan aynu ku guda jirno wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland xilka looga qaaday ayaa maanta mar uu saxaafadda la hadlayay waxa uu sheegay in eedda xilka looga qaaday oo la xiriirtay inay ku kaceen musuqmaasuq ay ahayd mid dhab ah waxaana uu intaasi ku daray in madaxda wasaaradda ee xilka laga qaaday ay u dhiibeen dokumentiyo been abuur ah isla markaasina uu ku shaqeynayay in muddo ah sida uu hadalka u dhigay aniga waxaan rabaa arin laga hadlayay maalmahan ka socotay magaalada inaan ka hadlo waxaan magacaygu waa cabdisalaad maxamuud radoofe waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan ahay maamulaha waxaan ahay fidiyaha degmada Xumbays waxaan horeyna uga soo shaqeeyay degmada Qandala waxaan rabaa inaan ka hadlo dokumenti been abuur ah oo aan kaga soo shaqeeyay degmada Qandala dokumentigaas waxa soo sameeyay nin shacab ah anigana waxa ii dhiibay agaasimaha waaxda maamulka Cabdulqaadir Xaaji Yuusufay iyo wasiir ku-xigeenka Gabax wixii ka soo baxay lacag nimankaas iyaga isticmaali jiray maamuli jiray aniga waxaan xiraa muddo 2 bilood ah markii aan ogaaday dokumentiga inaan ku xiraay waxaan dawladda u cadeeyay wixii kiiskaas aan ka ogahay sarkaalkan ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland waxa uu codsaday in loo fidiyo cafis maadaama sida uu sheegay uu cadeeyay dhab ahaanshaha eedda loo heesay isaga iyo madaxda ka sareysay dawladda iyo madaxda sharafta leh waxaan weydiisanayaa haddana waxaan ku joogaa damiin dawladda iyo madaxda sharafta leh iyo madaxweynaha waxaan ka codsanayaa cafis in la cafiyo maadaama aan cadeeyay kiisku sidoo u dhacay agaasimaha guud wuxuu iyo labada nin iyo agaasimaha guud waxay iga dhaceen lacag dhan $12,000 oo aan khidmad u lahaa anigu lacagta aan u soo xiriyay wasaaradda kalluumaysiga markaan Qandala joogay lacagtaas warqad cad baa layga qoray inaan weydiisan karin markii la magacaabayay degmada Xumbays warqadiina waan hayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa dawladdu inay cafiso aniga maadaama aan u cadeeyay kiisku siday u dhaceen madaxda iga sareysaan hawsha maamuleysay anigana amar laygu siinayay inaan sida u shaqeeyo wabillahi tawfiiq waa ka baxay madaxweynaha Puntland ayaa wareegtada uu xilka kaga qaaday mas'uuliyiinta ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland waxa uu cuskaday inay ku kaceen falal musuqmaasuq inkastoo qaar kamid ah madaxda xilka laga qaaday oo saxaafadda la hadlay ay iska beeniyeen arrintaasi iyagoona ku dooday in xukuumadda looga baahan yahay in ay keento cadeymo la xiriira falalka lagu eedeeyay maxamed madani Universal TV Boosaaso.